xaflad ballaaran oo ay soo agaasimeen maamulka iyo macallimiinta dugsiyada Al-Mustaqbal una qabteen ardaydii ka qalin jabisay fasalada afraad iyo sideedaad ee dugsiyada sare ee dhexe shahaadooyin iyo abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiinayay ardaydii kaalmaha sare ka gashay imtixaanaadka dalada Geeska Afrika ee Somaliland ayaa lagu qabtay Hotel City Palace ee magaalada Burco. xafladan ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer ka waxbarashada madaxda jaamacadaha culimaadudiin waalidiin iyo marti sharaf badan waxaana ugu horeyn halka ka hadlay maamulaha dugsiyada Al-Mustaqbal Sheekh Cabdilaahi Baashe waxaanu u hambaliyay ardayda munaasabadan ama xafladani waxaan u sameeynay ardaydii sanad dugsiyeedkii dhawaa 2014 iyo 15 ka qalin jabiyay iskuulada Al-Mustaqbal iskuulka Al-Mustaqbal sanadkan natiijooyin waaweyn ayuu ka soo hooyay imtixaankii guud ee dalada Geeska Afrika ay ka qaaday waxaan u hambaliyay ardayga kaalinta koobaad ka galay Jamhuuriyadda Somaliland oo dhan iskuulada hoos yimaada dalada Geeska Afrika ardaygaas oo magaciisa la yiraahdo Xamse Cigan Nuur waxaan kale u hambaliyaynayaa ardayada iyaduna lambarka koobaad u gashay hablihii imtixaanka u fadhiistay Jamhuuriyadda Somaliland oo dhan oo magaceeda la yiraahdo Maymuun Faysal Maxamed waxaan u hambaliyaynayaa Cabdilaahi Maxamed Cabdilaahi afwan oo isaguna kaalinta koobaad u galay imtixaankaas guud ee la qaaday gobolka Togdheer fasalada sideedaad waxaan u hambaliyaynayaa ardayda afraad oo magaceeda la yiraahdo Xafsa Jaamac Yuusuf oo iyaduna hablahii iskuulka Al-Mustaqbal kaalinta koobaad gashay waxayaguna halka ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer iyo gudoomiyaha waxbarashada gobolka Togdheer waxa farxad ah ka gobol ahaan ka degmo ahaan ka burco ahaan midhahan wanaagsan ee iskuulkan ama dugsiga sare Mustaqbal ama dugsiyadiisa dhexe ahaatee ay ka muujiyeen waxbarashadii dalka hambaliyo iyo bogaadin uga jeedinaya marka uu horeysa ardayda kaalmaha sare ka gashay dalada Geeska Afrika waxaan rabaa caruurta yaryar ee iskuulka ka qalin jabisay iga raali ahaada wax badan idin maayo laakiin waan idin xusayaa halkaanayna waxbarashada ka sii wadaan aqoontana idinku hay isku koobina gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin culimaadudiin waalidiin iyo marti sharaf badan siga Al-Mustaqbal ayaa yeeshay kaalmihii ugu sareeyay imtixaanaadka dalada Geeska Afrika ee Somaliland Ibrahim Faarax Macaan iyo Honkebel TV Burco.